السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada maalin cusub iyo wan iswada kram maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo of course arrinta socoto coronavirus and markii mashaakilka oo masalan coronaviruska ama epidemic waxyaabaha ay soo baxaan dadka walwal badan aan u imaado so waxaan ka hadlaa maybe 3 ama 4 qodob oo maxaa naftaada u qaban kartaa si oo stresskaaga uu u badanin oo mental healthigaaga ama caafimaadka maskaxdaada ee u sii liidanin ama dhibaatooyin ay soo gaarin so midda ugu horeysa waa maqasheen kulligiina coronavirus hadeertaanita virus oo aad iyo aad waxa waaye oo si dhaqsi leh u faafooyo oo dadka dhan subxaan allah ilaahay hanaga najeeyo laakiin si aad u xoog badan uu hadda aada iskugu daadaaranooya so of course khatar waaye waana dhibaatooyin badan aan dadka soo gaari karaan so waxyaabaha aan raba inaan ka hadla waxa waaye maxaa naftaada u qaban kartaa so midda koowaad waxa waaye inaa horta fiirisid waxaanayta waxa ani controli kara miya mise waxa ani controli karin waaye cudur ilaaha keeno aadi maceli kartid sida dhimashadana aadi maceli kartid so wax oo gacantaada ka baxsan waaye wax awood aa leedahay iska yar dhinaca oo cudurkaanaytan iska celina ama aan ka hortagaa si oo igugu dhicin ma samayn kartid adiga laakiin waxyaabo yaryar aa jiraan oo aad qaban kartid si oo naftaada aa u caawintid sida masalan gacmahaaga inaad dhaqdid markasto oo miisaska aad tirtirtid antibacteria iyo bisid inaa masalan dad qof jiran hadday meesha joogtid inaa ka fogaatid ama meelaha badan oo crowdka dadka badan iskugu imaahayaan inaa ka fogaatid so waxyaabo yaryar waaye adi aa samayn kartid si oo riskiga aa u yaraysid laakiin aad cudur ma istaaji kartid dhimashana markii taada imaado waa dhimanaysaa regardless ama regardless of waxaa suubisid so taas midda koobaad waaye midda labaad waxa waaye suubi wixii adi naftaada inaad aamin tahay inaad safe tahay ku dareensiinayo so waxaa ka mid masalan haddii oo isdhehaysid shaqada hadday aado dad oo waxaa la shaqeeya masalan jermis badan wadaan ama dad oo yani public haddaa la shaqaysid haddaa awoodid inaad shaqada aadin waa iska dhaafi kartaa ama waa wici kartaa shaqada waxaa dhihi kartaa ani isna caafimaadkayga uma fiicna inaa meel oo dad badan oo maantina inaa dad badan la kulmo ma awood inaa shaqada imaado taas waxay ku xiran tahay of course situationkaaga so qof oo wax maa tahay shaqo oo maxaa ka shaqaysaa benefits maa leedahay sick time maa qaadan kartaa 3-4 week 6 week halahi ay noqoto maxaa like shaqadaada waxa may ogashahay inay qofkii jiran ama qofkii oo immune systemkiis daciif yahay inay guriga ka shaqeyso so shaqada waxa uu guriga qaban kartid miya dadka oo xisaabaad haddaa tahay ama waxaad tahay ada shaqooyin qaarkood aa jiraan oo ayi meel aa ka qaban kartid ama guriga joog ama xafiiska joog isku hal waaye shaqada waa dhamaystirmaysaa so haddaa noocaasayta tahay then okay gurigan ka shaqeeha ayaa dhihi kartaa laakiin at the end of the day waxaa fiican inaad qabatid naftaada wixii adi ku dareensiinaya inaad safe tahay oo khatar ku jirin maanta dhan aa ka cabsahaynin cudurkaanayta ma laygu daarahay iyo maigu dhici karaa so midda saddexaad waxa waaye isku day inaa stay in the present ina ahaatid so dad badan oo waxaa jiraan maskaxdooda waxa geehayso haddii saas dhacdo haddii saas dhacdo haddii saas dhacdo waxaas dhan waxa waaye future mustaqbal waaye ma ogni mustaqbalka wuxuu dhacaayo ma ogaa kartid mana controli kartid so intaan ka walwali lahayd haddii ay saan gaarto heerkan haddaan gaarno isku day inaadan ka warwarin oo dhahdeed qadar allah maa shaa facal wixii oo ilaahay iyo qora igu dhacaayo maanta waa fiican tahay maanta cudurka ma qabtid maanta noolaa maanta enjoy garay noloshaada laakiin haddaa dhahdeed beri maxaa dhici doona haddii see weynaata haddii ilmaha cudurkii uu ku dhaco haddii uu heblaayo uu gaaro waxaa ka qaban kartid iska yar so marka ogaaw inaa qadar allah maa shaa facal wixii ku qorna kusoo gaaraayo raalina ku noqo saas accept garay and then mida ugu dambeysa aan sheegayo waxa waaye haddii walwalka uu kaa bato isku day inaad la xiriirtid family iyo friendskaaga so ehelkaaga iyo saaxiibadaada maybe telefoona u diri kartaa hadda
walwalkaaga hadduu aad u badan yahay oo jeermiskan iyo bacteriyadan socda viruska aad ka cabsanaysid qof oo ku dhagaysanayso oo kula fahmayso in anxietygaaga iyo walwalkaaga uu aad u kacsan yahay because of that or at least waxa kuu subinaysa kusoo xasuusihaysa again that wixii kuu qoran inuu kusoo gaarayo and hada waxa lagaa samayn kartaa wixii aa awoodid which is basically again gacmahaaga inaad dhaqdid you know miska iyo waxyaabaha oo ee dadka taataabtan aad tirtirtid oo waxaana ka fogaatid meelaha oo jeermisku badan yahay again waxaan rajaynaa inaa kulligiina of course caafimaad iyo waxa aa ku weertiin aaminaad dadka oo Soomaaliya iyo Afrika joogaan I hope inaa idinkana isku daydiin inaa practice garaysiin sida gacmaha loo dhaqdo sida oo afkiina inaa dabooshin markii la qunfacaya inaa dadka waayeelka ah laga fogaado because Soomaaliya camal hadduu cudurka gaaro iyo wadamada oo waxa lahayn health care fiican aad iyo aad ay khatar u tahay because si fududa la isku wada gaarsiin karaa and then dad badana waxay u noqonayaan halis inay ku dhintaan sida cudurka dartiid especially dadka waaweyn waayeelka ah ha laga fogeeyo dadka badan bulshadaha iyo dadka qunfacaya iyo dadka qandhan ha laga wada fogeeyo insha allah anagaan qadar allah ma shaa facal waxa waaye inaa نيدين خير وشيخنا إلهي إن شاء الله ونجا أمين قلنا وإنتاس نبتكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته